common infections treated with antibiotics يعني caabuqyada badankooda oo loo isticmaalo daawooyinka qalajaasha waynu arki doonaa sida ay yihiin ayaguna list of generic name iyo list of brand name marka si u fiiriso labadan eray oo generic name iyo brand name horta maxay ku kala duwan yihiin generic name iyo brand name run ahaantii daawo kastaba hadad lacal la aragto waxaad fiirisaa warqadda daawada ku qoran magaceeda sida tusaale ahaan magaca guud oo daawadaas ku qoran tusaale ahaan hadda wax weeyaan oo kala dhahnay amoxicillin marka amoxicillinkaas u jeedid waxaa loo yaqaanaa generic name sidoo kalena magac kale oo adiga ku hoos qoran baa jiro ama adiga sare ugu qoran magacaas adiga amoxicillinka isla magacaas kaasoo noqoni karayo amoxicillkaasna u jeedin tusaale waxaa loo yaqaanaa brand name marka waxaan ku kala fahansiin doonaa generic name iyo brand name waxa ay ku kala duwan yihiin sida daawooyinkan qaar sida meeshaan ugu jeedo daawadan hadda waxaa loo yaqaanaa amoxicillinkaas marka u jeedo waxaa loo yaqaanaa tusaale ahaan generic name waayo magaca generic name haddaad maqasho waa magac guud oo laisla wada yaqaano sida tusaale ahaan shirkad kastaba waxay soo saartaa daawo marka daawadan oo keliya xitaa ma soo saari karto oo adiga amoxicillinka dhowr daawo kala duwan ayay soo saartaa marka tusaale ahaan hadda magacaan aad u jeedo amoxicillin maadaama aynu dhahnay waa generic name taasoo adiga aad ku fahmi doonto in daawadan amoxicillin oo soo saari karto shirkad kastaba haddii uu yacni qofkan uu soo saaro shirkadan ama tusaale ahaan daawo hadday soo saarto daawadaasoo uu u baxsaday amoxicillin isla shirkada kalena haddii ay soo saarto ayadana daawadaasoo ay u baxsatay amoxicillin taas marka micneed meesha waxaa kaaga xaqiiqsanaani doono in labadan shirkad ay ka wada siman yihiin daawadan magaca loo yaqaano amoxicillin taasoo guud ahaan loo yaqaano generic name sidoo kalena haddii ay labadan shirkad ay soo sameeyeen daawadan amoxicillin oo ka wada siman yihiin magacana loo yaqaano amoxicillin oo guud ahaanna loo yaqaano generic name labadan shirkad maadaama ay soo saareen daawadan loo yaqaano amoxicillin una ka wada dhexeeyo ereygan ama magacan amoxicillin hadhowdi marka way inay u kala baxsadaan erey loo yaqaano brand name brand namekaas oo noqon doono in yacni amoxicillin hadduu shirkadan u baxsatay amoxicillin waa inay u baxsataa brand name oo loo yaqaano amoxil hadhowdi marka daawadan hadda amoxicillin oo ku qoran oo generic name oo la yidhaahdo haddaad ku aragto amoxil waxaad hadhowda ogaataa in daawadan ay u gooni tahay shirkadda soo saartay taasoona ku xaqiiqsanaani doonto in adiga u gooni oo keliya magacaas loo yaqaano brand name sidoo kalena shirkadda kale oo soo saartay magacana adiga oo amoxicillin oo daawadan soo aasaastay waa inay ayada u baxsataa magac kale loo yaqaano sida Climox ama Elimox waxaas oo idil aad u jeedo waa magac brand name weeyaan marka waxaad ogaataa daawooyinka idil xitaa maahan adiga antibiotic daawooyinka idil marka soo fiiriyo waxay leeyihiin generic name iyo brand name marka waxaad ogaataa in daawadan amoxicillin ay ka wada siman tahay magac ahaan dhammaan shirkadaha idil sidoo kalena shirkad kastana waa inay hadhowda marka daawadan oo ay u baxsadaan amoxicillin ay u sii baxsadaan magac gooni ah oo loo yaqaano brand name sida tusaale ahaan hadda daawadan waxaa loo yaqaanaa amoxicillin waana sharoobo shirkadan marka maadaama amoxicillinta ay soo saartay waxay u baxsatay magac loo yaqaano Elimox sidoo kalena shirkadan ayadana waxay soo saartay daawo loo yaqaano amoxicillin waa generic name brand name ba u baxsatay waxaa loo yaqaanaa Climox